waa mar kale iyo barnaamijkeena habeenimo ee caawa waa 12 bisha September qodobo kala duwan ayaanu barnaamijkan caawa aynu ku falanqayn doonaa waxa kamid ah dawladda wadanka Masar ayaa hoos ka xariiqday oo xaqiijisay in ay sii wadi doonto dhexdhexaadinta xaaladda magaalada Gaza kadib markii Israa'iil ay ku hanjabtay in ay duqeyn doonto maamul kasta iyo wadan kasta oo arinta Gaza ku lug leh isla markaana wadankiisu ay joogaan madaxda kooxda wax iska caabinta ee reer Falastiin waxaan kaloo barnaamijkan aynu ku eegi doonaa deegaanada maamulka Israa'iil mar kale waxa ka dhacay weerar u ekaa weerarkii dhacay 2023 laba qof oo reer Falastiin ah ayaa isku dayay in ay ka soo gudbaan meel silsilad iyo shabaqyo ay militariga Israa'iil ay ka sameysteen oo ay gudaha deegaanada maamulka Israa'iil ay ka waardiyayaan meeshaas ayaa waxa ka dhacday in dadkan labada qof ee reer Falastiin ah inay ka soo gudbeen shabaqa iyagoo doonaya inay gudaha u soo galaan Israa'iil ayaa la qabtay wixii halka ka dhacay waanu falanqayn doonaa waxaan kaloo eegi doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha maamulka Israa'iil oo waxa uu yiri mar kale ha u noqonin wixii aad ku samaysay magaalada Doha ogowse magaalada Washington waxa hadda ku sugan ra'iisul wasaaraha wadanka Qatar oo Trump ayuu kulan la leeyahay qodobada kale ee barnaamijkan aynu ku falanqayn doonno caawa waxa kamid ah magaalada Doha ee caasimadda wadanka Qatar waxa isugu imaanaya shir degdeg ah oo Carabta iyo Islaamka ay isugu imaanayaan shirkaasi waxa uu socon doonaa maalmaha Isniinta Axadda iyo sidoo kale Isniinta waxa laga hadli doono gabi ahaan waa weerarkii lagu qaaday magaalada Doha iyo sidoo kale bal jawaabta Carabta iyo Islaamku ay bixin karaan Iran sidoo kale kulankaasi inay ka soo qayb gasho ay doonaysaa waanu ka hadli doonaa marka hore daawadayaal barnaamijkeena waxa aynu ku bilaabaynaa dawladda wadanka Masar ayaa xaqiijisay in xukuumadeeda Qaahira ay sii wadi doonto arrimaha dhexdhexaadinta xaaladda magaalada Gaza kadib markii Israa'iil ay duqeysay magaalada Doha oo kadibna ra'iisul wasaaraha maamulkaasi uu yiri cid kasta oo ku lug leh arintan Gaza waanu duqeyn doonaa wadamadooda Masar waxay sheegtay inay sii wadi doonto dhexdhexaadinta wada hadallada xabad joojinta ee u dhaxeeya Israa'iil iyo maamulkaasi kadib weerarkii hogaamiyaasha kooxdaasi lagu qaaday ee Doha ka dhacay Masar ma ogolaan doonto dadaalkeeda dhexdhexaadinta inuu noqdo gabi ahaanba mid hal bacaad lagu lisay noqda way kamira dhalin doontaa ilaa inta xaaladda Gaza xal laga gaarayo isla mar ahaantaaba waxay yiraahdeen Masar waxa ay mar walba diyaar u tahay in ay labada dhinacba ay tusto inay dhexdhexaad tahay laakiin falanqayaashu waxay leeyihiin Masar miyaadan ogeyn in Qatar ba ay dhexdhexaad ahayd oo dhexdhexaadnimadeeda darteed loo weeraray ogowse magaalada Qaahira ee wadanka Masar in qayb kamid ah madaxda kooxdan ay ku sugan yihiin oo ay degan yihiin bal ma dhici kartaa in Israa'iil ay ku dhiirato in wadanka Masar ay duqeyso ogowse Masar dhawaan 40,000 oo askari ayay u soo dhaqaajisay gacanka Sinai oo waxay sugayaan kaliya gala dagaalka waana dabcan fariin Israa'iil loo diray oo ah Masar heegan bay ku jirtaaye miyaad ku dhiiran kartaa in wadankeeda aad duqeysid oo dabcan madaxda kooxdaasi ah halkaasi ku duqeyso ogowse ra'iisul wasaaraha maamulkaasi wuxuu yiri wadan kasta oo madaxda kooxdaasi ay joogaan annagu waanu duqeynaynaa haddii aysan madaxda iska soo ceyrinin digniintii ugu dambeysay Israa'iil waxay u dirtay Masar Qatar markale waxay tiri haddaadan iska soo ceyrinin waana kugu wadi doonaa dagaalka laakiin Masar Qatar waxay tiri annagu jawaabtaan ka bixin doono ayaa mar dhow aad maqli doontaan kadib ayaad naga leexan doontaan ama aanu sii dagaalami doonaa waa la eegi doonaa xaalkaasi sida uu noqon doono iyo meesha uu ku hari doono daawada qaybta hoose fikradaada nagu biiri maxaa dhici kara haddii Israa'iil ay duqeyso Masarna 40,000 askari ee gacanka Sinai jooga meel u dhow xuduudda Gaza iyo sidoo kale Masar iyana ma dhaqaajin kartaa oo Gaza ma gelin kartaa oo 40,000 askari ma difaaci karaan shacabka reer Gaza dagaalkaasi ma gali karaan Israa'iil ma la dagaalami karaan generaalka haysta wadankaasi Masar Abdulfatah al-Sisi ma kuleelka ayuu dareemay ee shacabka ka imaanaya ah inuu xuduudda furo Rafax furo gargaar magaaladaasi la gaarsiiyo mise weli Mareykankii ayaa ku horgudban oo in la sarcaadinaya wadankan Masar fikradaada qaybta hoose noogu reeb qaybaha kale ee barnaamijka inuu u gudubno shalay magaalada Daanta Galbeed ee la haysto arin yaab leh oo la mid ah weerarkii dhacay 2023 ayaa dhacay laba qof oo reer Falastiin ah ayaa horta marka hore intaanu gelin Falastiiniintaasi
magaaladan daanta galbeed ee la haysto waxaa xoog lagu deegaamaynayaa Israa'iil waxaa jira marka shabaq iyo sidoo kale silsilado loo dhaxaysiiyay bulshada reer Falastiin iyo kuwa reer Israa'iil marka shabaq iyo gidaar ayaa loo sameeyay marka gidaarkaasi derbi ma ahan waa uun dabcan derbi shabaqa ka samaysan marka laba qofood oo reer Falastiin ah ayaa isku dayday inay si dhuumaaleysi ah ay derbigaasi shabaqa ah ay uga soo boodaan waa derbi gaaban kadibna shabaq kor loogu sii xiray inay ka soo boodaan dhinaca deegaanada maamulka Israa'iil ay xooga ku haysataan ay u soo gudbaan dadkaasi labada qof ee reer Falastiin ah waxa la sheegay in ilaa iyo hadda cidda ay yihiin waxa ay sameynayaan iyo sidoo kale ujeedka ay halka u galeen inaanu kala cadeyn laakiin in ay sameeyaan weerarkaasi waxa uu soo xusuusiyay ra'iisul wasaaraha maamulkaasi iyo madaxdiisu wixii dhacay 2023 ogowse magaaladan Qudus ee daanta galbeed maalmo ka hor 6 qof ayaa lagu dilay 20 kalena way dhaawacmeen weerar toogasho ah oo ka dhacay marka labadan qof ee reer Falastiin laba maalmood ama maalmo ka hor inta weerarkan ama maalmo kadib markii weerarkan uu dhacay ayay arintan sameynayaan waxa la leeyahay marka hadda miyay maamulkan Israa'iil awoodaan in gidaarkaasi oo dhan ay ku wareejiyaan askar tira inta la egma hayaan maya weerarada noocan oo kala ah oo derbiga laga soo boodayo oo dadka mataqaana la rasaasaynayo kadibna laga tagayo aad buu uga soo badanayaa magaaladan Qudus iyo sidoo kale daanta galbeed arintaas waxay dhacday shalay booliisku waxay markii dambe oo maanta ay sheegeen in labadii qof ay gacanta ku dhigeen war kale waxay leeyihiin dadkii waa la dilay laakiin waxay u badan tahay in dadkaasi ay baxsadeen oo dadkii reer Falastiin ama dadkii reer Israa'iil ay ku dhex dhoonteen arintaas ayaa maalmihii ama saacadii la soo dhaafay soo kordhay dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha maamulka Israa'iil shalay waxa uu kala hadlay inaysan mar kale ku sameeynin wixii salaasadii dhacay wadanka Qatar oo aysan wadankaasi mar kale weerar diyaaradahooda aysan ku qaadin waxaan waa wax aan la aqbali karin buu Trump wicitaankaasi ku sheegay waxaan ka dalbaday ra'iisul wasaaraha inuusan mar dambe sameeynin weerar la mid ah wixii uu ku sameeyay magaalada Dooxa waanu ka soo horjeednaa waanu cambaaraynaynaa buu yiri hadalkan Trump waxa uu dabcan imaanayaa iyada oo ra'iisul wasaaraha wadankaasi Qatar uu ku sugan yahay magaalada Dooxa ee caasimadda wadanka uu ku sugan yahay wadanka Mareykanka gaar ahaan Washington halkaasina uu kula kulmayo maanta madaxweyne Donald Trump waxayna ka hadlayaan arinta Gaza iyo duqeyntii Dooxa ka dhacday marka Trump isagoo caraysan u muuqda inuu ka xun yahay wixii dhacay buu Netanyahu la hadlay waxa uu yiri mar kale ha sameeyeen wixii aad sameysay laakiin miyuu hadalkaasi yahay mid biyo kama dhibcaan ah oo xaqiiq ah oo ka hor istaagaya Israa'iil in mar kale ay duqeyso wadanka Qatar waatii ra'iisul wasaaraha maamulkaasi yiri annaga haddii ay madaxda ugu sarreysa ee kooxdaasi ay sii joogaan wadanka Qatar waanu sii duqeyn doonaa oo duqeyntaasi ma joojin doono Mareykankana waxa uu leeyahay ninkan annaga ayaa idinka ballan qaadayna inuusan mar kale duqeyn doonin halkaasi laakiin waxa la leeyahay miyaa la aamini karaa Mareykanka Qatar miyay aamini kartaa Qatar maxaa loogu soo sheegi waayay oo Mareykanka uu ugu soo sheegi waayay in weerar uu ku soo socdo maxaase Mareykanka uu u difaaci waayay wadankan Qatar waa su'aalaha Qatar ilaa hadda ay aaminsan tahay in Mareykanka uusan ka jawaabin laakiin ra'iisul wasaaraha wadankaasi ahna wasiirka arrimaha dibadda oo Washington ku sugan su'aalahaas buu doonayaa Trump iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda inay uga jawaabaan qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtidaada iyo sidoo kale qodobkan miyaa Mareykanka hadalkan uu sheegay ee ah in Qatar aan mar kale la duqeyn doonin uu dhab yahay mise waxa dhab ah hadalka ra'iisul wasaaraha Israa'iil ah haddii madaxda kooxdan ay sii joogaan magaalada Dooxa inay sii duqeyn doonaan oo duqeymo kale ay ku garaaci doonaan waayahay bal markan aynu u gudubno magaalada Dooxa ee caasimadda wadanka Qatar waxa ka dhacaya shir degdeg ah oo Carabta iyo Islaamka ay isugu imaanayaan maalmaha Axadda iyo Sabtida ayuu shirka dhacaya waxa laga hadlayaa weerarkii lagu qaaday isniin talaadadii magaalada Dooxa sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee wadanka Qatar dowladda Soomaaliya ayaa kamid ah wadamada lagu casumay oo kamid ah labada ururba Carabta iyo Islaamka ee shirkaasi tagaya dabcan waxyaalahan la filayo inay ka soo baxaan shirkan Dooxa waxa weeye in Carabta iyo Islaamka ay mowqif midaysan ay qaataan in meeshaas laga soo saaro qadiyad iyo qaraar mamnuucaya in xiriir lala sameeyo Israa'iil
waxaa suuragal ah inta aan la gaarin maalmaha sabtida iyo axadda ama axadda iyo isniinta in dowladda imaaraadka carabta ay safaaradeedii qudus ku taallay oo safaaradeedii Tel Aviv ku taallay ay soo xirto iyada oo haddaba u yeertay safiirkii Israa'iil u joogay magaalada Doha oo ay wax ka weydiinayso weerarkaasi iyo qaabkii u dhacay iyo wixii laga dan lahaa iyo in ay farta ka saarto ashtako ku saabsan inay cambaaraynayso imaaraadka carabta weerarkaasi daawade miyay kula tahay shirkan axadda iyo isniinta ka dhacaya magaalada Doha ee Carab iyo Islaam iyo xitaa Soomaaliya oo kamid ah labadaas ururba ay isugu imaan doonaan miyay kula tahay in go'aan weyn oo xasaasi ah ay ka soo saari doonaan mise waxay kula tahay in shirkan uu la mid ahaan doono shirarkii kale ee degdega ahaa oo si caadi ah madaxdan ay u yeelan jireen kaasoo aan hadal mooyee wax ficil ah aanu ka soo bixi karin aragtidaada nagu biiri qaybta hoose ha iloobin inaad subscribe inoo saarto mahadsanidin